waxay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ex deble nisa yuusuf xuseen maxamuud 24 jir ah ina bintow xaamud ku dhashay shabeellaha dhexe ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda gobolka qaybta guud ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u toogtay marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed oo ahaa taliyihii nabad sugidda gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 6aad 2016 dilkaas oo ka dhacay degmada Jowhar waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed 26kii bishii 6aad 2016 waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 8aad 2016 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ex deble nisa yuusuf xuseen maxamuud waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku cadaatay in uu si bareer ah oo ula kac ah u toogtay marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 5aad 2017 waxaa lagu fuliyay xukunsanaha xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq